عليه بقى أيو كفسي سود عين. سبحان الله إنه قف وين وحاكو هذا ما هذا الكاوكو هذا أيا مد لوجا عرضه أو قاعد دمان سوشيال ميديا لسنا دحمري gabadhii yareed ee gubbaad ee la kufsaday hooyadii saddexda carruur ah haysatay ee la kufsaday ayuu ninkan ku faraxsan yahay isla markaana uu sheegayaa in la kufsadayada iyo wixii la midaba subxaanallah waa arrin aad murugo leh waa arrin foolxumo leh waa arrin aad looga murugoodo haddaba daawade muuqaalkan oo dhammaystiran ama codkan sirta ah oo dhammaystiran ayaan ii soo gudbinaynaa fadlan haddii baad channelka ku cusub tahay videogana like garee waa like to video wax u taraysaa sidoo kale channelka subscribe garee si aad ugu xirnaatana kambalaalka sii furo bell iconka intaasaan kugu dhiirigelinayna dhawaan ayay ahayd markii la kufsaday inan yar oo 5 jir ah uu kufsaday askari ka soo jeeda dhinaca iyo Soomaaliya taas oo aad looga naxay loogana tiiraanyooday farxad laakiin ninkii askariga ahaa dil toogasha ay dawladda federaalka ku xukuntay isla markaana waa ay dishay ninkii waxa ku sameeyay inaan tayar ee 5 jirka ah ama dadka qaarna ay leeyeen waaba 4 jir ayuu kufsaday subxaanallah arrin aad naxdin u leh sanad ka hor ayay ahayd markii Caaisha yar la kufsaday iyadoo 8 jir ah gabadh yar oo 8 jir ah oo kasoo jeeda dhinaca iyo Puntland kadib markii meydkeedii oo la jarjaray la soo hordhigay xaafadeeda horteeda dhawaan ayaan maqlaynay kufsi kale oo ka dhacay isna magaaladaasi Burco oo loo geystay hooyo 3 carruur ah haysatay waa hooyo gubbaadi arrintan aad ka naxdinta leh ayaa ku soo badanaysa dhammaan dhulka ay Soomaalidu degto iyadoo ay ugu wacan tahay arxan darrada ay rag kula kacayaan ama naxariis darrada ay rag kula kacayaan haweenka ka jilicsan ee amaba ka taagta daran ee hooyooyinkeen ah waayo maad iman lahayn wiilow ama ninow maad iman lahayn haddaan maanta hooyo xaga ku soo gaarsiin maad iman lahayn haddaan maanta aanad ku taagnin hooyo macaan maad iman lahayn haddaan hooyo ku kalkaalinayn isku soo duuduubo arrintan ayaa u baahan in laga baaraan dago hadal markii uu qof ku hadlayo inuu ka baaraan dago isla markaana uu iska eego hadallada uu ku hadlayo ka soo baxaya afkiisa waayo waxa maraya ama maqlaya intaasoo milyan oo qof oo social media isticmaala ama Facebook isticmaalaan ama WhatsApp isticmaalaan arrintan aad ka naxdinta leh ayaa timi kadib markii la kufsaday hooyada 3 carruur haysatay ee gubbaad ee aadka u yarayd hooyana 3 carruur haysatay daawadayaal in laga baaraan dago weeyaan arrinta subxaanallah soo qor